dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inay dadaal ugu jirto sidii loo hakin lahaa ama loo joojin lahaa qorshaha Barclays Bank oo doonayo inuu ku joojiyo gabi ahaanba la shaqeynta xawaaladaha Soomaaliyeed. Cabdirasaaq Bulqaas wariyaha inooga soo warrama wadanka Sweden ayaa warbixintan inoo diyaariyay. Tan iyo markii bangiga Barclays ee dalka UK uu sheegay in uu 30 bishan September uu joojinayo ganacsiga dhinaca lacagta ee kala dhaxeeyay xawaaladaha Soomaalida, isagoo bangiga ku andacooday in uu ka baqa qabo in lacagtaasi uu xawilayo loo isticmaalo in lagu maalgeliyo argagixisada, ayaa waxa isa soo taraya baaqyada loo jeedinayo Barclays Bank. wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo qorsheynta xukuumadda Soomaaliya Maxamuud Xasan Saleebaan Cawil ayaa waxa uu sheegay in ka dawlad Soomaaliya ahaan ay iyagu dadaal ay ugu jiraan sidii ay qorshaha Barclays Bank ee joojinta la shaqeynta xawaaladaha Soomaalida loo hakin lahaa. Maxamuud Xasan Saleebaan Cawil, wasiirka maaliyadda iyo qorsheynta ee xukuumadda Soomaaliya, waxa uu marka hore u ka hadlayaa heerka xawaaladuhu Soomaaliya ay ka taagan yihiin iyo saameynta ay arrintani ay ku yeelanayso shacabka Soomaaliyeed hadiiba bangigu uu ka dhabeeyo qorshahaasi. marka ugu horeysa waan ognahay xawaaladuhu muhiimadda ay u leeyihiin dalka. xawaaladuhu dalku markuu burburay waxyaabihii ka burburay waxaa ka mid ahaa hay'adihii maaliyadda, ama bangi ha noqoto, bangiga dhexe, ama kii ganacsiga ha noqoto, ama wasaaradda maaliyadda ha noqoto. waxa uu soo haray Soomaali oo ay noqoto inay lacag soo gaarsiiyaan waxay noqdeen xawaaladaha. xaqiiqdii waxaan dhihi karaa waxyaabihii dalka badbaaday wixii badbaadiyay oo sababtoo ahaa waxa ka mid ahaa xawaaladaha. waxay ku shaqeynayeen karti iyo hufnaan badan oo u suurtagelisay in $100 oo adduunka laga soo diray meel kasta laga soo diray tuulo kasta iyo ceel kasta iyo magaalo kasta loo soo diro ay saacado gudaheeda ku gaarto bay hirgeliyeen. khatarta timid hadda waxa weeye in bangiyo badan oo ay la macaamilayeen oo meelaha ugu waaweyn oo lacagtu ka imaan jirtay sida Mareykanka iyo Ingiriiska ay ka mid yihiin inay joojiyeen inay la macaamilaan. taasina waxay khatar ku tahay dhaqaalihii wadanka. hadda waxaynu ka sheekeynay dib u soo kicintii dhaqaalaha. arrinta hadday dhacdo dib aad u weyn bay ku tahay dhaqaalihii dalka. waxay dib ku tahay dadkii masaakiinta ahaa oo helayay $100 iyo $200 oo caruurtooda dibadaha uga soo dirayeen ama waalidkooda uga soo dirayeen bay dib ku tahay. wasiirku waxa sidoo kale uu ka hadlayaa dadaalka ay xukuumad ahaan ay ugu jiraan sidii ay Barclays Bank ugu qancin lahaayeen in uu ka noqdo go'aanka uu ka qaatay la shaqeynta xawaaladaha Soomaalida. annagu dawlad ahaan muhiimadda ugu weyn baan siinaynaa arrintaas in aan waxaan ka qaban karnaa ka qabanno. hadda shirar baan waxaan kusoo galay Brussels, kuwa kale halkaan ku galay, waana wadaynaa. balan baan waxaan la leenahay Barclays Bank wadankan. Barclays Bank waa bangiga ugu dambeeyay oo Ingiriiska for example la macaamilay xawaaladaha. haddana wuxuu yiri bisha 30keeda buu deadline bixiyay inuu joojinayo. waxyaabaha aanu codsanayna waxaa ka mid ah in bal muddada la kordhiyo inta waxyaabaha nala ka dalbaya anagu aanu isku dabaridayno. ilaa iyo hadda ma naqaan exactly bangiyadu waxay dalbanayaan si aan waxa wajahno oo annaga dhanka Soomaalida wixii laga rabo aanu hirgelino. laakiin waxa dadka Soomaalida u sheegaya anoo ah wasiirka maaliyadda iyo qorsheynta dalka in arrintaas wax kasta oo aan ka qaban karno dawladahan aanu ka qabanayno, laga bilaabo madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha iyo aniga wasiirka maaliyadda iyo xukuumadda inteeda kalaba. arrintaas waa arrin mudnaanta koowaad aan siinayno. Soomaaliya ayaan waxaan ka jirin bangi rasmi ah oo shaqeeya tan iyo sanadkii 1991 xilligaas oo ay dhacday dawladdii dhexe ee Soomaaliya ee uu madaxweynaha ka ahaa Allah u naxariistay marxuum Maxamed Siyaad Barre. iyadoo tan iyo wixii xilligaasi ka dambeeyayna ay kaalintii bangiga dhexe ee Soomaaliya ay dabooleen xawaalado gaar loo leeyahay oo si toos ah ugu adeegayay bulshada Soomaaliyeed ee ku kala firirsan dunida dacaladeeda. Cabdirasaaq Bulqaas, Somali Channel.